السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. saaxiibayaal kulanti wanaagsan mar kale ku soo dhawaada barnaamijka ayaa u qalma kursiga barasabnimo ee ismaamulka Wajeer iyo qaybtiisii labaad. qaybta koowaad ayaan ku soo qaadanay laba siyaasi oo soo kala xukumay ismaamulka Wajeer 10 sano ee ugu dambeysay, kuwaasi oo kala ahaa Axmed Cabdullaahi Jiir oo ahaa gafanatorihii ugu horeeyay ee ismaamulka Wajeer yeelato, iyo Maxamed Cabdi Maxamuud oo haatan ah barasabka ismaamulka Wajeer. guud ahaan dalka Kenya waxaa si weyn loogu dareemayaa ololaha doorashada oo ay siyaasiyiinta ku dalbanayaan codka shacabka. saaxiibayaal ku soo dhawaada, waa kuma shakhsiga u qalma inuu maamulo ismaamulka Wajeer 5 sano ee soo socoto. doorashada dalka oo ku aastaysan 9 bisha 8 ayaa cid kasta oo doonaysa kursiga barasabnimada waxa ay ololo siyaasad ka wada ismaamulka Wajeer guud ahaan. maanta barnaamijkii u qalma maamulada Wajeer ayaan ku gorfayn doonaa laba musharax oo kala ah Dr. Xasan Fuuje iyo waliba senatarka Wajeer Dr. Kabreta oo ah musharax kursiga ugu saameynta badan ismaamulka Wajeer, ahna midka ugu muhiimsan sida ay dad badan qabaan. Dr. Xasan iyo Dr. Kabreta oo ah labada musharax ee maanta miiskii noo saaran ayaan idinkula wadaagi doonaa taariikhdooda oo kooban iyo waliba ajendaha siyaasadeed ee ay la soo shirtageen. sidoo kale waxaan idinla wadaagi doonaa waxyaabaha ay sheegeen inay u qaban doonaan shacabka Wajeer waa haddii ay soo doortaan. ugu horeyn Dr. Cabdullaahi Cali ahna senatarka haatan ee ismaamulka Wajeer oo loo garan u yahay Kabreta. Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu magac dheer Soomaalida guud ahaan dalka Kenya. marka laga soo tago dhanka siyaasadda, waa xirfadle dhanka caafimaadka, waxa uu ka soo shaqeeyay qaybo badan oo ka mid ah dalka Kenya oo aan ka xusi karno ismaamulada Isiolo, Moyale iyo waliba ismaamulka uu rabo haatan inuu madax ka noqdo oo Wajeer. Cabdullaahi in badan uu ka shaqeynayay goobaha caafimaadka, waxa uu u dhigarogtay dhanka siyaasadda asagoo soo noqday xildhibaanka waqooyiga Wajeer sanadii 1997 asagoo xilkaasi hayay ku dhawaad 12 sano. sidoo kale intuu xildhibaan ahaa waxa uu noqday xubin ka tirsan guddiga adeega baarlamaanka ee dalka Kenya. Dr. Kabreta kadib 2 jeer uu soo noqday xildhibaanka waqooyiga Wajeer. beesha uu ka dhashay ayaa 5 sano ka hor soo xulatay inuu u tartamo kursiga senatarnimo ee ismaamulka Wajeer, kaasi oo uu ku guuleystay. dhanka shakhsiyadiisa ayaa lagu tilmaamaa nin duun wanaagsan, waxa uuna xiriir u leeyahay siyaasiyiinta ugu sareysa dalka sida madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo waliba ku-xigeenkiisa William Samoei Ruto. sidaasi isla waxaa la sheegay inay aad isugu dhow yihiin siyaasiyiinta ismaamulka Wajeer. musharax Kabreta ayaa sheegay ajendihiisa koowaad inuu ka dhigi doono la dagaalanka musuqa ka jira ismaamulka Wajeer, uuna kor u qaadi doono nolosha shacabka Wajeer, uuna wax ka qaban doono abaaraha ka jira ismaamulka Wajeer haddii la soo doorto. waxa uu intaas ku daray in qof kasta xaqiisa ka heli doono ismaamulka. musharaxa labaad ee aan maanta warbixintan ku soo qaadan doona ayaa mulkiilaha isbitaalka Nairobi South, Dr. Aadan Xasan oo loo garan og yahay Fuuje. dhakhtarka ayaa ka mid ah dhowr musharax oo ay soo xusheen beesha uu ka soo jeedo, inkastoo qaar ka mid ah taageeradiisa ku aaminsan yihiin inuu yahay midka u qalmayn kursigaas loo dhiibo. dhakhtarka ka hor hankiisa siyaasadeed ee raadinta kursiga barasabnimo inta ugu badnayd noloshiisa waxa uu ka soo shaqeeyay dhanka caafimaadka. Dr. Fuuje ayaa ka mid ah kuwa aadka loogu jecel yahay marka ay timaado daryeelada bukaanada. isbitaalkiisana waxaa la sheegay inuu aad uga caawin jiray dumarka iyo waliba caruurta waa dhanka daaweynta. Dr. Fuuje ayaa mar uu wareysi bixinayay sheegay inay tahay xilligii uu shacabka Wajeer u adeegi lahaa, uuna yahay qofka ka saari lahaa siyaasad xumada horumar la'aanta ka jirta ismaamulka Wajeer haddii ay doortaan. dhakhtarka waxa uu intaas ku daray in Wajeer ay u baahan tahay maamul haboon. dhanka kale, dadka dhaliilsan siyaasadiisa waxay sheegeen inuusan awoodin in maamul wanaagsan uu ka hirgeliyo ismaamulka Wajeer. guud ahaan ismaamulka Wajeer ayaa ka kooban 6 deegaan doorasho. 5 ka mid ah deegaanadaas waxa uu sharaxan siyaasi kaasi oo raba inuu barasab ka noqdo ismaamulka Wajeer. daawadayaal intaasi haynoo ekaato warbixinteennii ee qaybta labaad ee u qalma kursiga gafanatorada ismaamulka Wajeer. insha Allah qaybta 3 ayaan idinkula wadaagi doonaa halkan waa Living Bro. fadlan ku soo biir
oo qayb ka noqo saaxiibada ku xiran Living Pro. mahadsanid.